السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإسلام يا رمتي به سحبت ولا لها ميل والبا وآد جوجتان إيوه وليبه سوى البعد كويدين سوغاري صاحبكين ولالكين حسين جامع أورنتي سولابتي وحين ما رنتي سمينينا إنديكيتر ردي oo ahayd runtii qaybtii ugu dambeysay ee ka dhimanayd istaraatiijiyaddanadii isla markaana aynu markaasi noqon doonto casharkii istaraatiijiyadda ku saabsanaa oo dhammaan doona markaasi runtii waxaynu hore u sameynay newskii waxaynu hore u sameynay waxa loo yaqaano candle readingkii oo runtii uu ka soo baxay result aad u badan dad badan oo runtii candle readingka fahmay ayaa faa'iido badan ku sameeyay haddii ay tahay demo haddii ay tahay real account ba maantana waxaynu markaasi runtii aynu samayn doonaa oo aynu dul istaagi doonaa indicatoradii haddii aad xasuutaan muuqaalkii dheeraa ee aynu ka samaynay ama aan ka sameeyey istaraatiijiyadii dheerayd ee aan sameeyey indicatorada aan isticmaalay oo aan idin tusay saddex indicator ayay ahaayeen saddexda indicatorna saddexduba waxay ahaayeen moving average ay ahaayeen waxaan kaloo rabaa inaan horta moving average-ka nambarada ah maxay u taagan yihiin maxaase loo isticmaalaa way iska fududahay inaan idin iraahdo 9 baa u wanaagsan 18 baa kasii wanaagsan 60 baa kasii wanaagsan 100 baana u wanaagsan laakiin waxaynu u baahanaa horta inaynu horta kow isweydiino naftanadana weydiino horta nambaradani maxay u taagan yihiin waa su-aasha ugu horeysa qof walba wax garanayo asaguna isweydiinayo anigana in la weydiiyaa ay mudan tahay haddaad aragto moving average numberka haddaad aragto macnaheedu waa the number of days wey tusaale ahaan oo kaleeto 9 markaynu ka hadlayno waa 9 maalmood wey laakiin mar walba waxaad meesha gelisaa oo aad xasuusanaataa maalmaha laga hadlayo waa maalmaha uu suuqu furan yahay weekendiga lama xisaabayo anytime oo moving average laga hadlayo sidaa daraadeed waxaa jira runtii dhowr arrimood ayaa jira oo very standard ah oo moving average number aad loo isticmaalo waxaa ka mid ah 5 ayaa ka mid ah 10 ayaa ka mid ah 20 ayaa ka mid ah 50 ayaa ka mid ah 100 ayaa ka mid ah 200 ayaa ka mid ah lixdaas xab waxaan oran karayaa waa the most commonly used way waa waxa intooda ugu badan la isticmaalo laakiin aniga labada xabo aan istaraatiijiyadan aan idin baray aan ku saleeyay kuwa kuma jiraan wala yaabaa Ustaad Xuseen oo maxaad u sameyn weysay kuwa standardka oo isku isticmaala dadka kama caalamani laakiin sababta aan u sameeyay ayaan idin sheegayaa wax yar ka bacdi waxaan runtii ogaaday dad badan ay ogaadeen oo aniga kaliya aan ahayn in sida dhabta suuqan markaad u dhax gasho aad ogaanayso suuqan inta uu furan yahay 5 maalmood ma aha xataa markii weekendiga laga reebo kaliya waa 4 maalmood iyo bar wey waayo Fridayda maalinka Fridayda ah suuqa qaybtiisa ugu dambeeya sessionada qayb badan ka mid ah ayaa xirma waayo adduunku ogtiina waa kala waqti Australia waa naga dambaysaa waa naga horeysaa Mareykanka markaynu joogno New York London ayaduna waa inaga horeysaa oo saacado badan bay inaga horeysaa Asia waa inaga horeysaa in reality halka markii laga hadlayo New York session markii laga hadlayo dadka New York session ka trade garay inaad New York joogtaa ma aha qaab kaliya oo niyad uga trade garan oo joogin baad ka trade garan kartaa laakiin dadka New York session ka trade garaya waxay runtii fahmeen ama jirto oo xaqiiqo ah in inta dhabta uu suuqan inoo furan yahay markii la celceliyay ay noqonayso 4 maalmood iyo bar asbuuc walba so marka 4 maalmood iyo bar iyo 4 maalmood iyo bar marka isku daray ayaa numberka 9 ka aan la soo imaano 18 kuna marka wuxuu noqonayaa bil ayuu noqonayaa halka 9 kuna uu 2 asbuuc noqonayo waayo asbuuci 4 maalmood iyo bar baan ka soo qaadanay asbuuca kale 4 maalmood iyo bar baan ka soo qaadanay marka isku darnay 9 maalmood ayaynu ka dhignay taa marka waa halka ayada ah waxaa kaloo marka jira oo aan rabo inaan idin fahansiiyo ka hor inta aanan screenka idinka tusin practically sida aynu isku saarno saddexdan moving average oo runtii aad la ii weydiiyey ayaa waxaan rabaa hal mar horta inaan isku dayo inaan idin tuso sida ay moving average isugu imaadaan in reality markii aad sidaba u fiirsato oo waqti geliso moving average sida ay u socdaan waxaad ogaanaysaa tusaale ahaan oo kale gacmahayga soo qaadanaya mid ka yar
the smaller hadduu rabo 9 ha ahaado ama 10 ha ahaado ama 5 ha ahaade numberka yar wuxuu ceyrsadaa ama uu jeesgareeyaa the candleska ayuu ceyrsadaa baa la yiraahdaa. maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa in midka yarka ah uu la socdo ama uu ka daba ordo the movementiga uu sameynayo candleska, waayo wuu ku dhow yahay, wuu la socdaa. hadduu candleku kor u baxo asaguna wuu ka daba baxaya, hadduu soo laabto wuu ka daba laabanaya. waa signal la daba dhigay candleska oo loogu talagalay inuu ku raaco. wuxuu kaloo ku sawirayaa oo qalqalooca moving average-ku uu ku sawirayaa the movement of market-ka ayuu ku sawirayaa. haddaad candle reading-ka aadan xataa aqoonin, haddii aad fiirsato moving average-ku sawir buu ku siinaya. kii la soo dhaafay hadduu hoos u dego market-ka waad arkaysaa wuu degaya. isagaa ka fudud baa la yidhahdaa mararka qaarkood dadka aan candle reading-ka aqoonin. so marka midka yarka ah wuxuu jeesgareeyaa ama uu ceyrsadaa market-ka ama candleska, halka midka weyn ama uu ka hooseeyo ama uu ka koreeyo uu ka fog yahay candleska. sidaa daraadeed labadoodu marka sidaabay isku yihiin. inta badanna midka yar baa lugaha ka waalan oo falan oo u taga midka weyn baa la yiraahdaa. what does that mean? waxaa laga wadaa in midka yari badanaa markuu midka weyn asaga u taga oo hoos ka soo maro haddana ku dhaca oo haddana kor ka soo maro ku dhaca 90% midka yarka ayaa socda, waayo asaga ayaa la xiriira the movement of candleska. sidaa daraadeed arrinta kale oo labada moving average loo isticmaala waxay tahay istaabashadoodu waxay ka dhigan tahay isbedel suuq oo isdaba maraya. mararka qaarkood isbedelku yar yahay marna wuu weyn yahay, laakiin waa muhiim inaynu mar walba ogaano marba suuq halka uu socdo, ama ha yaraado spaceku ama ha weynaado movementku. markaas taa marka waxaan isleeyahay waa overview-ga horta sida ay bahaladan u shaqeeyaan iyo waxa ay ku taagan yihiin iyo waxa loo isticmaalo iyo kuwa standardka ee farada badan. meesha marka 10 laga isticmaali jiray dadka standardka inta badan ay isticmaalaan baa anigu 9 ka isticmaalaa, halka ay 20 ka isticmaali jireen baan 18 ka isticmaalaa. waan soo yara gaabiyey aniga keliyana maaha, dad badan baa isticmaala. waa arrin hadda adduunka aad looga isticmaalo oo dad badan ay isticmaalaan. inta ugu badanna waxaa isticmaala dadka ka shaqaysta suuqa Mareykanka ama New York session ku xiran ayaa isticmaala. marka waxaynu fiirinaynaa marka inta aanan idin sheegin secret cajiib ah oo la xiriirta suuqan goormaan laga taageeriyaa. what is the best time? laga yaabaa inaan horey idinkugu sheegin, laakiin maanta waxaan idin sheegayaa best time frame, not time frame, laakiin the best time aad suuqan ogaan kartaan inuu sameeyo dhaqaaqa ugu farada badan laga faa'iideysto. waxaa aniga sameeyaa 4 saacadood ayaan inta badan maalinkii trade gareeyaa. 4 saac waa goorma waa idin sheegayaa, laakiin intaan taa idin sheegin ka hor oo aan kusoo xiri doono barnaamijkeenan maanta ama casharkeenan maanta, bal hamar horta aan idin tuso sida aan moving averages isugu xirxirayo iyo sida ay markaasi kala yihiin iyo sida qaabka loo sarab galayo oo runtii horena aan u sheegay, haddana aan ku celin doono biidni illaahi tacaala. soo dhawaada. markaad fiirisaan xaqiiqatan screen-kayga oo aad arkaysaan way saaran yihiin moving average-yadii, laakiin waxaan rabaa inaan ba ka qaado dhammaantood inaan naga saaraan doonayaa si aan ba horta usoo bilowno oo qof walba horta u arko. yar baa iga weydiinaya Nairobi, dad badan baa iga weydiinaya Soomaaliya. ma garanay marka waxay ugu adkaatay, laakiin hal mar ayaynu sameynaynaa. meesha indicator-ka ayaad tegaysaa, isaad arkaysaan waxaad ku qoraysaa indicator-ka maad ka tagtaan moving ayaad ku qoraysaan moving. kabacdina waxaa idin soo baxaya the moving average-ka 2 jeer ayaad click siinaysaan. 2 jeer aad click-ta siinaysaan waxay u dhigmataa marka aad 2 moving average furaysaan, kabacdina waa la edit gareynaya. marka dhinacan geeskaad ka arkaysaan oo kuwaasaa 2 moving average. taa markii aad samaysaan ayaad iska xiraysaan, waad ku laabanaysaan edit ayaad leedihiin. qaybta hore 18 baad ka dhigaysaa midda weyn, laakiin markaad 18 ka dhigto make sure that high ka dhigto because of high-ga ayada 18 ka ah. colorka ayaga ku dooraya. qaybta labaad markaad tagtana waa inaad 9 ka dhigto, laakiin 9ka markaad ka dhigtana waa inaad low ka dhigto. waa high iyo low, high iyo low.
labadaa markii aad setup garayso waad arkaysaa marka screenkaagii way kusoo laabanayaan. haddii aan mar kale si caadi idin tuso waxaad arkaysaan marka in midkan yarka ah uu yahay oo oranjiga ah midka baxaya ee kan u tagaya ee haddana kor soo maraya ee soo dhex maraya ee soconaya ee haddana raba halkaa inuuga tago. usually midka yarka wey midka waalan asaga ayaa movementiga wuxuu cayrsadaa asagu candleska ayuu cayrsadaa meeshii aadaan buu aadaya. markii aad fiiriso midka weyn waa iska yara straight laakiin midkan yarka qalqaloociisa badan iyo socodkiisa badan kan kale asagoo iska ron ayuu kan kala waalanya waana muhiimada loogu talagalay. waa ku laabanaynaa haddana halka marka indicatorka ayaan tagaynaa. tii hore moving ayaan niri tan haddana moving kale ayaan leenahay. tusaale ahaan waxaa inoo soo baxaya marka moving average two lines cross baa lahaa laba signal bay leedahay oo buy iyo sell ah sida halkaa ka arkaysaan. hal click ayaad siinaysaan halkaani ayaduna idiin imaanaysaa. in reality marka haddii aad muddo hore setup garaysatay 9kii 18kii ayadaaba qaadanaysa oo waa loogu talagalay waxay ku shaqaysaa moving averageda ayaa lagu support garayaa. haddii marka ay qaadan weyso oo aad arki weyso inay different number hoostan kusoo qorayso qaybtan sittingka ayaad tegaysaa waad edit garaynaysaa. the fast lengthigu waa midda ordaysa ee fastiga ah ee aan idiin sheegay ee lugaha ka waalan midaasaa 9ka iskale. haddii ay number kale idin tahay ka bedela 9 ka dhiga. midda islowga ah ee weyna waxaad ka dhigtaan 18ka kabacdina okay aad leediin. very simple. waxaad arkaysaa marka inay meelahan idinka tusayso inay up and down. teeda kale dad badan ayaa ayaduna waxay weydiiyeen arrin kale oo la xiriirta meeshan haddaan soo xasuustay. waxay leeyihiin candleska si fiican oo ma aragno. meeshan geeska markaad imaataan muuska soo qabanaysaan clickta dhab baad siinaysiin. click dhab waad qabanaysaa. markaad qabataan saa markaad u qabataan ayaad saan u ballaarinaysiin waad raacinaysiin haddana waad soo laabanaysaan. candleka way isbedelayaan. halkaa markaa imaataana soo gaabiya halkaa markaad imaataana saan ka dhig. way fududaa marka inaad candleka aad ka dhigataan more visible wax weyn maaha. meeshaan geeska laga dhigaa dhab baa la siiyaa. markaad aragtaan arrowga inay sidaa noqoto hadda dhinacaas faad sidaa markay noqotay ayaa dhab la siiyaa kabacdina hoos iyo kor baa loo wadaa. period wax weyn maaha. aniga runtii trade viewga ayaa ku samaystaa wixii information ah wixii analysis kabacdina telefonkiga soo qaata waxaan la soo baxaa MT4ka nambaradii halkaan aan ka fiirinaya kaba soo qaado kale to where is my stop order maxaa la dhahaa stop loss where is my profit take already screenka biisa telefonka intaan qaataan ka sameeya wax weyn maaha. haddii aad MT4ka ka samaysaanna waa isla meeshii waad samayn kartaan kii idin fujeela. aniga trade viewgan jeclahay waayo colorkiisa beautiful ma jecli MT4ka colorkiisa. haddaba taana macnaheeda ma aha marka inaad adinkuna aad jeclaataan ee aad jeceshiin baad ku subin kartaa analysiskiina. taa marka horta waa halka ayada ah. waxaan rabaa marka inaan ugu dambeyn idin sheego timeka la trade garayaa horta waa goorma. intaa taa aan idiin sheegin ka hor waxaan rabaa inaan xasuusiyo labada suuq ama labada session oo ugu xooga badan forex tradingku waa New York iyo London. waa New York iyo London waa Mareykanka iyo Ingiriiska period. mar walba oo ay labada isla furan yihiin suuqa wuxuu dhaqaaqaa the biggest movement ayuu dhaqaaqaa. isbedelka ugu xooga badan wuxuu dhacaa markii ay Mareykanka iyo isla furan yihiin lacagta iyo London. maxaa keenaya runtii waxaa keenaya beerarka ugu xooga badan baa isa soo gaaraya. tusaale ahaan lacagta USD-da iyo lacagta GBP-da oo Great Britain ah iyo lacagta Euro iyo lacagta Swiss francs iyo lacagta Canadian-ka ayadana Mareykanka iyo Canadian-ka isku waqti waliba New York iyo Toronto waa isku waqti. waxaa isoo gaaraya 6 ilaa 5 big bear baa isoo gaaraya waqtigoodana wuu isla furaya. Mareykanka oo markaa waqtigiisu soo kacay oo markaa suuqu furmay iyo kuwaas European-ka oo waqtigoodu sii dhacay ayaa isoo gaaray. clash culus ba meesha ka dhacay. waana markaas marka ugu culus uu suuqaani dhaqaaqa way. Soomaaliya markaas imse ka tahay. London markay 2 ka tahay maalinimo 2 PM markay ka tahay oo Frankfurt ay 1 ka tahay
maraykankuna 8 a.m. in the morning bay ka tahay European ko dhan way soo jeedaan Canada ayadana sidoo kale Toronto 8 bay ka tahay a.m. in the morning waa isku waqti xilligaas beerarka aad ka tirgareynayso waa inay ahaadaan ama Canadianka iyo lacagta Mareykanka ama lacagta Europeanka iyo lacagtan maxaa la dhahaa North America oo Canada iyo Mareykanka tusaale ahaan waxaad ka tirgareyn kartaa USD iyo Canadian waxaad ka tirgareyn kartaa USD iyo GBP waxaad ka tirgareyn kartaa euro iyo waxa loo yaqaano GBP euro iyo USD euro iyo Canadian ugu yaraan 10 beer ayaa waxay ku jiraan move-ki ugu xoog badnaa bay ku jiraan afarta saacadood waxa la yiraahdaa waa the golden chance qof walba afarta saac isbara inuu ka trade gareeyaa runtii wuxuu la kulmayaa suuq si fiican u socda ayuu la kulmayaa waa the secret iskuma sheego laakiin waan idin sheegayaa isku daya inaad isbartaan Soomaaliya xilliga waxay u tahay qiyaas ahaantii ilaa iyo 4 pm ay Soomaaliya Eastern time Kenya Ethiopia Uganda Somalia dhulkaayo dhan galab bay ka tahay markay casarka soo tukato ilaa iyo ugu yaraan ilaa iyo salaada cisho oo kale meelaha waliba ilan cishada gaarin maybe ilaa iyo 7 oo kale waa 4 iyo 5 iyo 6 ilaa iyo 7 oo ay idin tahay good time Soomaaliya iyo East Africa ayaad helaysaan suuqii oo xoog u soo ayaad helaysaan waxaa marka la sameeyaa 2 saac ka hor London markay 8 u tahay bilaaba businesska waayo markaas ay Mareykan 8 u tahay oo suuqa Mareykanku furmaya haddii suuqa Mareykanku wali furmin London aad la targelisaan wali min heli golden chance lacagta Mareykanka la socdo Mareykan wuu kala duwan yahay New York la socda iyo Toronto New York iyo Toronto waa isku waqti 8:30 email markay u tahay suuqooda uu soo furmo markaa way waxaan waliba idin dhihi lahaa hadday 4 idin tahay galabnimo marba isbedeshaa oo London ay 3 saac idin dhaxaysa laakiin inta badan waliba hadda xilliga lagu jiro 2 saac baa idin dhaxaysa marka waxaad sameysaan 2 saac hadii marka 8 markay 2 u tahay London dad isku aadinaysa London baa idin dhow isku aadin karaysaan 2 saac ka hor ama 1 saac iyo bar kasii hore maray idin tahay to all of Teddy emailaha ilaa iyo to all of oo kale oo noon oo durkii idin ah inta fariisataan analysis sameey isku diyaariye suuqa ka furmaya newska si aqriya xaaladda la socda markii suuq uu saa u furmo decision ka gaaraysan idinko already og hadartan 20 minutes iyo 10 minutes iyo hatta hal saac u kaadi karaysan laakiin suuqaas laga trade garay waana suuqa ugu culus waana movementiga ugu xoog badan ee suuqa ka dhaca afarta saac ayuu dhaca Asian session iyo Sydney session labaduba session xoog badan ma only Asia oo dhan Japanese yang ba wax macaan la ka waxooda kale waa iska trash weyn lacagta loo yaqaano Sydney iyo lacagta New Zealand waa isla furba isku waqti bay furma xilliga ay furmayaana America xilli fiican bay ka tahay laakiin Soomaaliya xilli dambe oo leed ay ka tahay lama kulmi kartaan Asia I know inaad xogaa waqti dhow diin laakiin Asia markaad ka tirad garanaysaa la Asia waxaa loo fiiriyaa Europeanka loo fiiriyaa Asia iyo Europeanka isa soo gaara ama London iyo lacagta Asia isku fiiriyaa kuwaas isa soo gaara ayaga dadna waa time-ka ugu fiican oo runtii markaasi la trade gareeyo tanna waa qaabka ayadana markaasi loo dhigo moving average-ki la xiriiray qaacidadeeni ama istiraatiijiyadeeni time-ki aan idin sheegana maskaxda ku haya arinta ugu dambaysa oo aan rabo inaan idin iraahdo waxay tahay forex trading runtii haddaad doonaysid inaad profit fiican ka hesho oo aad noloshaada iyo cimrigaaga inta ka dhiman aad shaqo u baahan waa inaad well prepared inaad ahaato waa inaad noqotaa mechanic inaad noqoto mechanic maxaan ka wadaa meeshaan baalba ay saaran halkaan markaad ka fiirsaa waxaa igu jira musbaaro waxaa igu jira baasha ka shuutooyin waxaa igu jira maqasyo waxaan forex trading waxba loogama qabto laakiin table-kayga aan ku trade gareeyo ayay usually kor iga saaran yihiin waa ii reminder maxay xasuusinayaan runtii markii aad fiiriso dabeecadda iyo naturalka dadkan mechanicska ah waxaad arkaysaa inay yihiin dad well prepared ah
waa dad u diyaarsan inay shaqada qabtaan musbaarka iyo dubaha iyo birta iyo waxa ay haystaan you can't imagine wax walba ayay rabaa inay qabtaan ama ay samayn karayaan waa dad isku diyaariyay inay shaqaystaan bahalahan markii aan bartay waxay ahayd muddo ka hor guriga maanta wax walba la furayo inaad farsamada gacanta barata iyo waxay ku tusaysaa ama ku baraysaa inaad tahay qof u diyaarsan inuu wax alla wuxuu doonayo uu qabsan karo isla markaana qalab walba uu waxa lagu qaban karna uu markaasi haysto muhiimadeedu ma aad waxaan soo gadataan marka muhiimadeedu waxa weeye wixii aad barateen hadii ay candle reading tahay iyo hadii ay news tahay iyo hadii indicator tahay iyo hadii tahay market ka issue structure kiisa iyo wax walba soo qaado miska soo saar marka trade galaysid marka doonaysid inaad shaqaysato waxaad haysato halkaas soo saar isku diyaari inaad shaqaysato trade galayso isku gee cilmigaaga oo dhan suuqa qayb kamida candle reading ka bas ku filan qayb kamida indicator ka bas ku filan qayb kamida in isku geeya ku filan qayb kamida indhaha bas aad ka fiirsan ku filan laakiin ha oranin candle ka bas ku shaqaysanaya oo wixii kale ka soo tagi ama ha iloobi ugu yaraan 4 sano in ka badan ba suuqa ku jira wali meel walba note ba iyala still waxa baranaya every day waxba kugu cusub meeshani waa jaamacadu boqolaal cilmi oo isku geeyay ayaa forex laga sameeyay statistics waa ku jira arkaysan oo economics financing accounting thinking research waxba ku jira meesha cilmi baa yaala idin malihi way adagtaa laakiin waxaan idin leeyahay istiyaariya oo soo qaata masaabirtiina iyo birina waqti galiya oo u dulqaato ka caran lacag markii laga hadlayo dib bay gadaal ka marta lacag markaad raadinayso waqtigaaga iyo cimrigaaga iyo wax walba wanaad u hori kartaa waysan loo helo iskama imaato haddii suuqaani qof bil iyo 2 bil ku jira uu profit ku rabo ka sameyn karayo adduunka inta ma isa gaajooteen waa saa u fikirtaa waa inaad marka sacrifice la timaado iyo work hard si aad naftaada u bedesho suuqan u barato aan diyaar u ahay inaan idinku caawiyo waxa la wixii aan hayo secret laakiin inaad wax barataan oo aad isdiyaarisaan oo aad adkaataan waa mid idinku xiran way aniga waxba uma xirno aniga waxa igu xiran kaliya inaan idin faa'iideeyo oo waliba si Soomaalinimo iyo walaalnimo leh oo waliba qalbi furan la daacadnimo leh aan idinku sheego the major secret suuqan ku jira وإن سلام يا ميرل بو أتشوكتان أديات كل شفتي يوتيوب channel كيغا فضلا صوبين أصحابتي دا سبسكرايب سارة لايك كومنتي وليبا بيلكا فرطة هدي اللو دا كرتان أصحابتي دا يوتيوب على فيسبوك أنا وإن كريم مهد إلنا يا إناد لو داكتان ولا لها كلا سوماليد إدوني إني أيغونا وحكا برتان فوركس تريدينكا أكا حسدينا أيغانا وشير قرايا أو تصا إني نوي مادان أي وح إن الله برتان وإن سلام يا إن شاء الله تعالى وانقضي دونا مالمها سو صعدة عشان رضا دمان إيه وحيانا كلنا وان سو وضا وعيدي رجينا يقول إيه عافماد ميل والبوات شوفتان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته